Mishanka xakamaynta AIDS-ka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Solnak xafiiskiisa gobolka Sool ayaa goobaha waxbarashada ka bilaabay wacyigelin la xidhiidha cudurka dilaaga ah ee HIV AIDS-ka. Goobaha ay wacyigelintan ka sameeyeen waxaa ka mid ah dugsiga Boordanka ee magaalada Laascaanood. Isuduwaha Komishanka Xakamaynta AIDS-ka ee gobolka Sool, Zeynab Cabdiweli ayaa ka warbixisay wacyigelintan ay maanta bilaabeen. Maanta waxaan halkan ku nimid inaan sameeyno wacyigelintaas oo ku saabsan ay soo qabanqaabiyeen Komishanka Xakamaynta AIDS-ka waxaana weeye barnaamijka baraarug oo gobolada dhan ka wada socda maantana ininka nasiib u yeeshay in ku daahfuro dadkii ugu horeeyay loo qabta aad noqotaan Komishanka Xakamaynta AIDS-ka waxa weeye Solnak waa Somaliland National AIDS Commission waxyaabaha uu qabto ama waajibaadka asaasiga ah waxa kamid ah inuu dadka wacyigelinta iyo taakulaynta iyo daaweynta uu siiyo dadka xanuunsan iyo dadka kaleba taasoo ah sheeg waxa uu asaasan yahay ama waxyaalaha uu qabto ay kamid tahay gobolada oo dhan uu ka shaqeeyo gobolkeena hore uga muu jirin laakiin hadeerto ayuu ka jira oo kuna shaqeeya wacyigelinta iyo baraarugta aan sameynana bulshooyinka kala duwan qaybaheeda kala duwan aan u sameynano ininkuna de waxa tihiin dhalinyaradii maanta de gobolka ee wax baratay de waxbarashadiina wada waxa la rabaa wacyigelinta inaad ka bilowdaan guriyihiina sheeg dadka asxaabtiina de inuu de iskuulka ardayda de qof walba waajib bay ku tahay inuu de baraaruga ama wacyigelinta uu ka qayb sideeba looga hortagaya hadda waxaad uga hortagaysaa inaad horta ka dheeraato wax galmada xaaraanta waad ka dheeraanaysaa waxaa kaloo ka dheeraanaysaa irbadaha iyo sakiinta waxyaalaha dadka ugu badan ee ka qaadaan waxaa ka mid ah irbadaha la tuureen jagshaka samid arag ama isbitaalka ama qashinka soo wadooyinka ku tuur kuwaasoo kale waxyaalaha laga qaaday ka mid taha waxay kaloo iska ilaalinayaa oo aad doonaysaa inaad qaadin isbitaalada ama meelaha samid arag ilkaha laga xidhoo kale meelaha ugu badan ee gudbiyay ka mid tahay hadeer nambarada meelaha gudbiyay dadka ay ka soo raacday ka mid tahay because of sterilization sida alaabta la iskaga nadiifiyo bay ku xidhan tahay marka ma aha meel kasta in laga qaado dhankooda mas'uuliyiinta iyo macallimiinta dugsiga Boordanka ee Laascaanood ayaa Komishanka Xakamaynta HIV AIDS-ka wacyigelintan ay bilaabeen goobaha waxbarashada ee magaalada Laascaanood maadaama ardada boardingkii waxyaabo ay sheer garaysa ayaa jirta xanuunkana si toos ah u fidiya maxaa ka mid ah makiinadaha aad ugu xirtaan inta saaxiibka ugu xirto oo ay ka dhiijiso adna aad ku xirato toos baad u qaadaysaa haddii saaxiibka uu waday fayraska HIV AIDS waxa kale cidiya gurta baashan cidiya gurta haddii uu maxaan ku raahdaa dhiigii ku booq cidiya gurti adna aad la isticmaasho qofkii jirana waxa way toos baad u qaadaysaa waxaan idin kula talinayaa inagu muslim baynu nahay dhalinyaro baatihiin wax walba waxa ugu jirtaan halis muslimkuna waxa lagu dhiirigeliyaa xanuunkan marka ay laga hortagayo waa in aad muxuu ahaa hadii aad doonaysid inaad muxuu ahaa galmo samaysid waa inaad galmo xalaal samaysaa oo xaaraanta ay iska ilaaliso sababtoo waxa weeye wax walba waa kaaga imaan karaan waxa ka sii khatarsan xanuunka mararka qaar la sheega xanuunka loo yaqaan hepatitis oo isaguna beerka iyo intaas oo dhan digada ka dhigay marka intaas aad kula talin lahaa waxaa loo baahan yahay inaad wacyigashataan oo dad wacyigelinta qaataan noqotaan aydu noqon waayo waxbarashadii baad ku jirtaa Cabdi Jaamac wararka Honkeyban Laascaanood dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed